waxaan ku weydiinayaa sida aad sheegtay waxaad tihiin culamo Soomaaliyeed balse oo jamaaca ah sidaan ku oran culamada Soomaaliyeed weligeed waxay dagaalami jirtay gumeysiga iyo gaalada iyo xabashida ka soo bilaw Ahmed Guri Amir Nuur Sheikh Maxamed Cabdullah Xasan Bartane intaba idinkoo maanta sheeganaya culimadii Soomaaliyeed balse oo jamaaca maxaa idin diiday inaad xabashida iyo gumeysiga la dagaalantaan mid labaad sidee suurtagal ku noqotay idinkoo culamo sheeganayo in maxaan ku raadaya ciidankiina lagu soo tababaro maalin kasta Ethiopia lagu soo tababaro culimada Soomaaliyeed way diidi jireen weliba wax cilaaqaad lama yeelan marka maxaa sababay in cilaaqaad inta in leeg ah aad xabashida oo ogtina cadawgeena inay tahay inaad cilaaqaad inta leeg la yeelataan magaalooyinka aad joogtaan xabashida ay barbar joogto su'aashaas kaliya iga jawaab yaakhay bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sallam وإلهي سبحانه وتعالى كبر ويا أني أدعو إلهي نصعصف النبي وحناقة عرض أن يلكرن الشيطان فأصوصه إلهي من قدم يا إلهي كرجونا إن شاء الله تعالى وحا هذا مشكلة وين ويا إن أتصي إن أهل السنة والجماعة ولقد أكرد قال لهم تشتغل على الإجنيستان الصومالي وأنا من دهراء أنكم شغي وأنا من دكايوها صعد إلى يومنا هذا مسيح إيواء فهورستي markii caday guuleystay ay ka foosteen Soomaaliya taana deegaan oo shaqsi Soomaaliya gaar dalka Soomaaliya in laga helo ay ka foosteen oo boqolkiiba boqol in Soomaaliya islaam noqoto mashaa'ikhdii Soomaaliyeed ee alsunna wal jamaacada Sheekh Ways oo sharci badri ka Sheekh Halmi oo qalaada u qabaan darad ay weerar ku qaadeen Sheekh Xasan Macalin hadda laga horeynayo iyo mashaa'ikhdda lamidka Sheekh Nuur Xuseen مشاهدة أيها المشاهدة اللي كلام بيعلم الدرس الصومالي بلدي إجلسي كلام بيعلم إن كفاحة أغرد مرغاتي كان نقطة مرغاتي كعضاءات بان إشتو دوين يا تحق لنا وطن كير كرمان وحارج الآن دوين يا إنا إن بدن أو بدن أركيها بصار إنا أخوان تهي ونصور دوين يا رنتي وانركيني إن شاء الله تعالى لأنه كل ما يستروا فكرة الكليم تأه أنا لبوالن كما قدرنا نفسها صهران المودي كري توربيان كري وصارت كراسة إلى يوم من هذا نفسها أول ما واحد بأن أبوره هدي قطع وفوش هذي أن وصاصة إلهي نوح إليه إن شاء مصاصبا بالنبائي تتبينوا هدي قصاصة وفوش كفنا هي أو بأن ووركوش هذا يستغضي في هذا الأب أسلين أبو ماركي كايل كأح مركا نحن الله أصدق أن أبور هبلا تلجوا إتبانا تلجوا إله سبحانه وتعالى يضمر أن عنك فإنه قال يوحدك في أن يسند إقاه ويوحد شوح ولله إلهي تشعل رسولك تشعل عليه الصلاة والسلام مؤمنين ولا هذا تشعل وأكثر إلى وقتك تأوجي ليس من آيات شوح فالله هو اللي أوضى القرآن كان والله أخيرا كتب كان والله بركة مسلم كان والله نودل شيء حرية شارع عليه السلام توافقنا والله تغير أن مركة أنا رحت اللي واحد إيه لا داوع أنا والله داوع لما يدارى شيء داوع إذا استجار إيه لا لا تعبنا نقول لي بوش كذا يكتب وقاهيا واحد مركو حياة وقت متشين كأح ومن عاصر وحرزين يناسبه جدا إن شاء الله تعالى جدا يرتي التوزيع ينظام الإسلام كذا يرتنا واحد أصلاً أن ضد بنا هذا الأكيد كذا الصورة وتخطي تشرنا كلام أريتشينية إن أي استحيل تكري كيران أي لي كيران أمير كان هو مركا أمير كيني أيا أوير يوغانديس إثيوبيان يا حبشة يا مسارة يا يهودا كره وها أوير أمير كيني أنو فريق دكانة يا خوارزمي تبغى تشوف كنا وده والله منا لكن أمير كيني أظن استحاول إنه كلها تفكرات وإلهي وقت كنا سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوكي سؤال شكله وحاسكله بشكل waxaan ku soo afjaraynaa Germany warka ee raali naga ahaa sida darteed kuna noqoshada waqti lama hayo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan filayaa inuu maqal jiro sheekh horta waxaan aad uga xumahay in su'aalihii lagu weydiiyay aadan ka jawaabin waxaan idinka codsanaynaa kooxdiina ahlu sunna wal jamaa la baxday bal marka dambe qof ka cod karsan oo ka cilmi badan inaad soo dirsataan oo su'aalaha si wanaagsan uga jawaaba su'aasha kaliya aan rabnay inaan kuugu celino in badan lagu weydiiyay oo waliba gabar Soomaaliyeed ku weydiisay waxay tahay xagee ayaa jirteen labadii sano ee Itoobiyaanka lagu la dirirayay Soomaaliya gaar ahaan Muqdisho
xaggee ayaa jirteen oo aad ku maqnaydeen maxaadse dagaalka uga qayb qaadan weydeen markii alhidaaya masjidulhidaaya culimaa udiinka tabliiqa lagu xasuuqayo oo lagu gowgowracayay marka waxaan rabaa inaad noo sheegto bal waktigaas meesha aad ku maqnaydeen waktigaas meesha aad ku maqnaydeen oo iyo wixii aad markaa la maqnaydeen waa midda koowaad waa midda labaade ma waxaad dafiri kartaa oo aad inkiri kartaa in nimankiina ahlusunna waljamaaca la baxay oo magaca bililiqada wato inaad tihiin niman gacan saar lale etoobiyaanka oo maanta iyo shalay iyo doraada ugu dambaysay aad kula shirayseen balanballe ciidanka etoobiyaanka saraakiishooda ma taa ayaad dafiri kartaa ood inkiri kartaa adduunka warbaahin ayaa jirta caalamkuna waa degmo yar oo kale weeye waxa ka dhacay balanballe waxaa laga ogaan karaa meel walba dunida dacaladeeda ka tirsan haddaad mooddo inaan waxba la ogeyn midda kale aan kuu sheegayo waxa ay tahay jihaadku laba u qaybsamaa jihaad dafc iyo jihaad maaragtay talab hadda jihaadka aad ku jirtaa noocu yahay ma noo sheegi kartaa ta kale arrinka aad ka been sheegayso taariikhda maaragtay oon ku xasuusinayo waxay tahay in aad tiri maxamed ziyaad bare culimada uu laayay waxay ahaayeen uu dilka ku xukumay ahlu sunna wal jamaaca ula jeedo suufiyada sheekh xasan daahir aweys ayaa ka mid ah raggii toogashada lagu xukumay arrinkaa ma la socotaa mise lama socotid sheekh xasan daahir aweys raggii dilka lagu xukumay ayuu ka mid ahaa waqtigaa isaga ah marka sheekh xasan daahir aweys ma ahlu sunna wal jamaaca ahaa mise waa sheekh salafi ah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah bashka wuu ka baxaa lagu yidhi baraada u kaadi su-aal fiican baa weydiisay marka u kaadi baraada waana insha allah soo qab safiya abdiro safiya markaad diyaar tahay maarta ii sheeg bashka sabuurda fiiri bashka si fiican waa ugu listay laakiin sabuurda eeg bashkow si fiican baa u dhigtay ya isku mid maaha qofka nikaax official ku dhasha meel fagaaro ah markii nikaaxaagu uu ku dhaco iyo meel mugdi ah oo qarsoodi ah meeshii daafeed markuu nikaaxaaga ka dhaco oo waalidka lagaa qariyo isku mid maaha kelimayno waana la baray wax fiican ma ahayn dhaqan xumay ahayd inta safiya ay sheekh ka soo celinayso ama sidii u tegay baa naga ahaada kaas famisa isku mid maaha meel dhow aan idinka soo qabanaa khawaarij isaga ah ninka ogol in hooyo aabba inta laga qariya gabadhii ee laga soo meheriyey meesha la yidhaahdo daafeed ogolaan maayaan waa la bartay diinta waana la baray ma yeelayno xataa canuga dhaama markaas cagaaran ma ahayd meeshii bashka ma yeelayno wax dhici kara maaha ma la qaadan karo eeg cunuga nikaaxa officialka ku dhashay iyo midka hooyadii la meher xaday laga qariyay waalidka isku mid ma aha sida runta ah isku mid ma noqonayaan calaacal maaha raawi bacteria etoobiyaanka markay beledweyne yimaadeen ma guushiin ba'da wallaahi billah wax la yaab le waa wallaahi hal mara etoobiya xag mid markaasa la yidhi guulaan joognaa guul marka asxaabul qudbu siro waa arkaynaa maxaa la rahdaa ii sheegeen hadda xataa maaragtay ninka raba inuu gabar xado wuxuu u tegaa maaragtay wadaadada noocaasuu u tegaa markaas ku xiraa yaa weli ku ah ma jirto bes horuu qabkaaga siinaa marka waxyaabahaas waa la diiday diinta waa la bartay waxa fiican iyo waxa xun wallahi kol dhan waa baran nin fadhiya ninka wato wallaahi bilaahi ilan lama aqoon diinta waa run lama aqoon gadaala laga bartay markaa fiiriso etoobiyaa keenay horta bacteria racwiye adinkaa keenay baad ku haysaan etoobiyaa keenay waxtaa beentaa kaaga daran qofka mas-uulka sare iyo mas-uulka hoose qofka xildhibaanka kulli waxay caada ka dhigteen maya wallahi sabrina dhigkar maa waxay caada ka dhigteen etoobiya adinkaa keenay etoobiyaa keenay sbeysiga isla socday etoobiya siday ku timid waa naqaan iyo qaabkay u timid yaa keenay etoobiya awalay noo soo socotay aniga waxaan aaminsannahay in dalka ay u soo socotay dalka ay rabto inay xalaalaysato cid loo nisbayn kara ma laha markaasaa adinkaa keensaday
بس أنا ربطان ضل كيرون فراغ وبحو واحد الذين وقرنك فورو عليكم السلام ورحمة الله دقيقة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ضد قدالك السوقل على البكتيريا على عليس ما أنت داوي لابد يحل لبان والله جنبضي وهلا هنا دولة واحد تاني كذا هنا هي أهل السنة دينا حتى والله كان واقع وحقنا كذا سؤال بقى ودينا مركز وحو هذا الجابي هالكسو كسر اللي حنا مالك لو كل هذا أيوه وحكروا كو آخرنا سؤال شو اللي ودي حتى أدليست إنك جوابت هاي ما فهمت لكن إنا برئي هالكسي صامر تمام من أجندة